kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin caalamka meel walbo aad ka joogtaan iyo waqti walbo ay idin tahay oo wacan hadii ay habeen ku tahay habeen wacan hadii ay maalin ku tahay maalin wacan hadii ay galab ku tahay galab wacan meesha aad nagala socotaa ama halka aad naga daawanaysaan waa channelkiina siryacaad ku soo dhawaada mar kale iyo video hor leh waad ku mahadsan tahay la joogaaga kunjeer hadii aad fideogan la kulantay markii ugu horeysay ama aad channelka ay tahay markii ugu horeysay oo aad la kulanto subscribe saarkan baleelkana furo si aad mar walba u hesho muuqaaladii ugu dambeeyay oo aan soo gelino hadii aad horey noola joogtayna shukran kunjeer ayaad mahadsan tahay abaalkaagana ma gudi karno fideogan la gareysayna share gareen lana wadaag asxaabtaada maanta waxaan idin hayaa run ahaantii wax aad iiga qosliyay waa arin run ahaantii maalmahanba aad u kacsanaa oo gabdhaheena oo dhan waxaad moodaa ka soo bilaw farxi kabayare ilaa iyo fanaanadeena kale xamdi bilan in loo wado dhanka iyo Turkiga yaani loo wado marka ku leeyahay Turkiga way ku sugnaayeen xamdi bilan waxay ku laabatay xamar oo muqdisho ay ku laabatay dalxiis ay ka bixi laadahay oo ilaa iyo warshiq ay ku arkay sawiro ay soo dhigaysay channelkeeda Facebook ay ka leedahay saxda laakiin waxa la yaab mudan in loo saariyo nin Turki ah waxa la yiri xamdi bilan waxa guursaday nin Turki ah lama oran kaliya xitaaye waxa jirto ciwaan fake ah oo loo isticmaalay waxa la soo dhigay sawirkan waan hadda arkaysaan waa sawirka eeg qoraalka ku qoran si fiican u akhri waxa ku qoran xaajigeyga cusub ma soo dhaweynaysiin iyo wax la mid ah waxa la yaab mudan in xaajigeeda cusub waa Turkish farxi kabayarana waa Turkish labada waxa la geeyay Turkiga waxa lagu daray rag Turki ah sida iska cadna ninkan laba sawir ay kula jirtaa sawirka labaadna waa kan hadda arkaysaan labada sawir ay kula jirto ayaa waxa loo mooday in ay israbaan miya ma fahmin kii masawirkii oo laba loo dhigay baa oo qoraalkan lagu soo dul qoray maxay tahay sababta loogu maleeyay annagoo og xamdi bilan in ay run ahaantii aanan laga heenin afkeeda amaba inta badan aysan ahayn qof xitaa saansaanta ajnabi jacaylka ah ay ku jirto dadka qaar waxa jirto oo loo maleyn karay sida farxi kabayaro oo kale aad bay ugu dhiirigelisaa dadka jecel inay guursadaan ajaanibta iyadoo waliba inta badan inta aad aragteen weerarta ragga Soomaaliyeed iyadoo kun jeer ku weerartay mar nadaafad dar ayay ku sheegtaa marba wax ayay ku sheegtaa oo waxaad moodaa in ay iska sii fogaanayso wixii u sabab ah run ahaantii garan maayo waayo fanaanada farxi kabayar waa fanaanad Soomaaliyeed haddana ma ahan qof taageersan ragga Soomaaliyeed waxa laga yaabaa hadda ciyaalkeedu waa Soomaali waxa laga yaabaa inay dhibaato badan kala kulantay marka taa ay keentay inay nacdo laakiin xamdi bilan sababtii loogu maleeyay ilaa hadda aanu maanan garan laakiin sida aan ka warhaynay xamdi bilan hadii ay dhici kareyso ama ay dhacdo in ay xaaji sameysanaysana waan wada ognahay halkii ay marka hore loo tuhmayay iyo xagga loo maleynayay iyo hawsha meesha ay ahayd laakiin maanta waxa dhacday markii aan arkay ilaa iyo shalay ayaa la hadalhayay laakiin muuqaaladan iyo waxyaabahan ugu dambeeyay YouTube-ka waa la isticmaalay dad baa isticmaalay oo YouTube ayaa la soo galiyay marka shaki ayaa ay galay waa qaadan lahaa xitaa ereygaas oo lamaan diideen mana yaabeen oo waa dhici kartaa bil aadam weeyaan qofka haduu muslim yahay ha noqdo wadanka doono ama meesha doono ha ka soo jeedo qofka kale bil aadamku uu u banaan yahay oo ma jirto sifaala ka celinayso in ay guursataa haduu qofka muslim yahay Turkidana inta aan ognahay inta ugu badan waa dad islaam ah haddana waa dad run ahaantii aad u jecel Soomaalida mana la yaabeen in ay nin Turki ah keensato oo qofka dooq ayuu leeyahay ma aha qof xabis ku jiro ma aha qof aan anaga xabisi karno xitaa waalidiinta dhaleen hadii ay u keensato qof muslim ah oo ay la yaqaan run ahaantii way fiican tahay walow la sheegayay inay jiraan shuruudo adag oo Turkiga markii aad doonayso in aad guursato ama aad qof ka soo guursato oo kale in guurka intaan la gaarin ka hor ay shuruudo jiraan shuruudahaas waxa kamid ah in aadan Turkiga kala bixi karin qofka guursato nin ha noqdo naag ha noqoto mid kale ciyaalka ku dhashaa dalka Turkiga hadii aad adigu jinsi kale ka soo jeedid tusaalahan adigu aad Soomaali tahay hooyada noqo ama aabaha noqo in aad ciyaalkaaga ka haysan karin xitaa hadii aad kala tagtaan qofka ama ninkaaga ama naagtaada mid ay noqotaba marka intii oo dhan anaga oo og haddana sababta aan u jecelnahay maalmahan in ajnabiga guursano ma fahmin waxaana jirto cilad oo dadka hadda aad ugu soo badatay waxa weeyaan cilada dadku waxay ku leeyihiin nimankeena ragga ayaa waxay leeyihiin naagaheena anaga ama gabdhaheena romantic ma aha oo waa dad aanan romantic ahayn
dumarkeena waxay leeyihiin ragga Soomaaliyeed romantic ma aha haddaba yaanan romantic ahayn ma gabdhaha ayaanan ahayn romantic mise ragga ayaanan ahayn romantic jawaabtaasna waxaan jeclahay inaad iiga jawaabi doontaan anu muuqaalka horena waa ka hadlay runtii anigana taydu waa dhiiban doonaa laakiin tiina waa muhiim sida ay tahay ama sida Ilaahay idin la ogyahay idinko aanan sameynaynin idinko aan dhan u bixinin idinko oo aanan ataagaynin dad amaba aad is oranaynin wiilasha caay oo hadii aad gabar tahay iyo hadii aad wiilta aad isleeyahay gabdhaha caay sida ra'yigaaga dhabta ah ama aad ku cabiri karayso ayaad noogu cabiri doontaa labada qolada aan romantic ahayn iyo qolada eeda iskale haddaba tayda ayaan u laabanayaa anigu markii aan fiiriyo waxa annaga naga maqan oo aan romantic ku noqon laanahay isfahamka ayaa aad noogu adag markii aan sheekada bilaabayna ka soo bilow ilaa iyo xitaa markii la isguursado waxa inagu adag horta in aan isfahanaa ama aan fahanaa baahiyada annaga aan leenahay tusaale ahaan ninka markuu guursado gabadha wuxuu ka xishoonayaa inuu weydiiyo baahiyadeeda yacni wax iyada ay jeceshahay wax iyada ay ku farxayso inuu ogaado culays badan iskama saarayo waxa moodaaba in oo noloshii oo dhan ay tahay guurkaas oo la galay oo kaliya marka taa ayaa waxa keenaysa in la isfahmi waayo oo nolosha la isku cadibmo oo la isku dhibaatoodo ogaadana mar walba guri la sameeyo waxa laga adkeeyo ama meesha laga adkeeyo u baahan in la adkeeyo waa aasaaska ugu hooseyso guriga aasaaskiisana waxa ay qofka labada qof markay sheekaysanayaan huuha iyo been ay iskaga sheekeynayaan iyo waxyaabo qiyaale ah oo aanan jirin hadhow markii gabadha ay guri gasho wuxuu la soo baxayaa wiilka ama gabadha waxay la soo baxaysaa dabeecadeeda saxda ah waxa imaanaya marka isku dhac iyo in wax la kala tabado oo qof walba tabashadiisa ay gaar u noqoto marka taas ayaa keenayso in gabdhaha Soomaaliyeedna ay ragga ay ka boodaan ragga Soomaaliyeedna ay gabdhaha ka boodaan isku daya marka hore inaad isfahantaan isku daya in aad idinka Israa'iil gelisaan Xamdi Bilan ayaa ku soo hartay Xamdi Bilan sawirkan ninkan ee la gashay ninka wuxuu aad igula egyahay hadii aad ila qabtaba wuxuu ila egyahay ninkii soo dhaweyntii Farxiye Kabayare joogay oo markii loo turjumay lahaa ninkan ayaa ku salaamayo waa Turki ninkii la lahaa ayuu anu muuqaal ahaan igula egyahay adigu fikirkaaga waa ku xur qofkaas hadii uu kula shabaho iyo hadii uusan shabihinba adigu waa nala wadaagi doontaa waa tan labaad ee aan jeclahay inaan wadaagno laakiin tan koowaad ee muhiimadda ugu weyn aan siinayno waxay noqonaysaa ragga Soomaaliyeed ma iyaga romantic ahayn mise gabdhaha Soomaaliyeed ayaanan romantic ahayn yaa eeda iskale in la isfahmi waayana yaa u sabab ah yaana looga baahan yahay 100% in uu culays ka saaro maanta fanaaniinteena waan arkaynaa Farxiye Kabayare waxay ku jirtaa kacdoon adag oo xagga ragga ah waxaanu leenahay walaashan ugu qanacsano sida annagaba idinku qanacsanahay waxaan rajeynayaa in aan isfahamkeena saxi doono wixii qalad oo hore u soo dhacayna waa wax soo dhacay wixii soo dhacayna gadaal ha u fiirina iyagan hadda cadaanka ah ma dadkan jinsiyadaha kale ka soo jeedo iyagaba dabeecadahaas way leeyihiin kun jeer ayay isfuraan kun jeer ayay isdhibaateeyaan waa wada ognahay marka annaga waxa loo baahan yahay in annaga isku qanacno Xamdi Bilan waxaan idin sheegayaa asxaabta iyo qiyaarta aragtay muuqaalka hadda ay soo tusiyay in aysan waxbaba ka jirin guurka ayna ku sugan tahay xamar sawirkaasna oo ahaa nin Turki ah oo sax ah laakiin aysan ahayn mid ay wax kala dhaxayaan ninka ay rajada iyo maamulka iyo ka sugaysana waa iska wada ogtiin idinkoo dhan waxaan rajeynayaa in aad sidaas u fahmi doontaan waad ku mahadsantiin daawashadiina kun jeer inta aan mar labaad iyo mar saddexaad kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa fikir wanaagsan iyo saarag dambe oo xiiso leh